dhalinyaradu laba cillo ay leedahay labadaasaan idinka digaya ku gabagabaynaya laba cillo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan uu yaqaana waa suuqgalka waa inuu ninku tasayub xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 3 markaad isku qasabto maalin afraadana sigaariya cabad noqonaysaa khamra maalin la yiraahdo tijaabiya maalin toddobaadana khamriya cabad soo baxaysaa suuqa habeen ama laba la tijaabiya bariga dambena routine walada sabtidii hadda wadada sii taagan ma noqonaysaa idan kaas waa inxiraaf waa tasayub waa in tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxa adag inaad soo noqoto bale waxa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baabaado ka inta badan dadku iska waaniya mid dhanka kale baa isna jira dhalinyaradu markay cibaadada qabsadaan ay qumanaanta qabsadaan waxa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca maxaan uga jeednaa nolosha miisaankeeda ka luma dabeetana waxbuu tira badiya walow taacana ha noqotee dabeetana wax kale ku xadgudbaya مثلا عبد الله بن عمر بن عاص به وغوري isagoo nin dhalinyaro ah markii loo guuriyay ninkana wuxuu ahaa nin quraan akhris badan oo soom badan habeenkiina uu taagayo quraan uu akhriya maalintiina salaad uu habeenkiina quraan iyo salaad buu wada maalintiina waa sooman yahay inantii loo meheriyayna kanafkeeda ma taaban ila waa nin maalina sooman habeenna taagane aabaheed baa soo maro wuxuu yiri war bal warrama inantii buu yiri bal warran nicma rajul huwa rag isaga u fiican bay tiri مسارك معناه أبى يتلمامت وجود مرت رجنا ووفي عن يحرم كل شيء مايه ونقال صومنا صلاة يده عبادة وتاجن خيرنا ما أجاهم بالليل هاي تبتنا النبي وشان النبي عليه الصلاة والسلام ويشير أهل الرسالة قوة صح معها قرآن كان تاتكو آخر ده هو هبين كستان كتوراب ولا ورد مايه كده بالليل بيشي مرد ما قرآن كا مركز سوري مايه وان كحوق بدني إيدا إلهي رسولك سيو حوقي كان كفايدته هذا دورية عشر دم باليدي ما إلهي رسولك سيو إيدا وحوق بدني كفايدته تضبط كي مرة ما وحوق بدني كفايدته والمرصد 11 مرة ما باليدي ما وان حوق ورهك على ما دافع من بقولي 11 على ما دافع كشوف وهلقوا يدي ور ما نصوم وانا نفرح ده نوحلات المامي right way isagoo soon iyo salaad iyo quraan akhris ku jira waxa loo sheegaya xuquuq kale inay luntay ma ha soon iyo salaad inay xuquuqda kale lumiso Salman al-Farisi ayaa ninkii la walaaleeyay Abu Darda Abu Ayyub al-Ansari si Abu Darda ayuu la seexday habeen buu yimi dabeetana waxa arkay xaaskiisiyo Mariya iska kuwii lagu shaqayn jiray iska sidata de gabadh la qabo baan u ekay maxaa dhacay buu yiri waxay tiri walaalka adduunyadan kama leh aakhiru ku mashquulsan iyo meel kale habeenkii wala seexdo in yarba markii la jiifuu soo booday saxaabigi dabeetana salaad buu sii xidho war saxaabu ku yiri salaad leeyna iska seexo waa ka celiyay abaar markii la joogo soo booday war saxaabu ku yiri وسيحي غور دمبه أيوة كاعمك ما لا تكاد تبتني وحكول ورد جيسو نفط دور حق بيك وقولات إذا كمورن هبين ورد سوتش ده هبين كي نفط والراحة إن إلهي عابد نفط حق بيك وقولات إلهينا حق بيك وقولي خير كاقول حق بيك وقولي يموت الماء وحن وحقوق مدول بلغار بين الجد بسو سبحي بالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام سلمان رمبو شيء يقولي سيدا وسلمان شيء صحة waxaan uga dan leeyahay dhalinyarada xagga cibaadada timaadana tatarrufkan kale ku dhacaa inuu yiraahdo anigu tacliinta ma iska deynay waxba baran maayo
meel lagu xoogsi tagi maayo naaga qaban baa meel heer marmara maxaad qaban dabeetana socialkaad barayaysaa dabeetana masaajidka dhex fadhiyaysaa hada laysa bidiin wax sax maaha cibaadayso sax salaadaada ilaasho soonkaaga ilaasho been ha sheegin run sheeg cibaadayso laakiin noloshii activity-geedana waa cibaado kale ka qayb qaado waalidkaa u samafal mujtamacaaga u samafal dadka wax u qabo idan waxaan leenahay ku soo koobaya waqtigayga waa iska dhammaad baan filayaaye shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi baa ammaanan laakiin labada tataruf midna diinta kuma ammaana inaad noloshoo dhan one sided ka dhigto oo noloshoo dhan aad si qura u aragto nolosha waa laynagu itixaamay ibtilaaga dhammaantii inaad gashaabaa loogu talagalay ee anugu waxaan ku jirayaa uun halka kani sax maaha saa awgeed waxaan leenahay dadka ammaanani waa dhallinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaantaa leh cibaadadoodaasi dadka kale toddobada mawaaqif baa loo sugaya iyaga mowqif gaara looma sugan cibaadadooda mutlaq baa laga dhigay waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay bay leenahay inay noloshoo dhan ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xun yihiin markaa inaad tarafkaa cibaadada uga dhacdo tataruf u baxdid iyo inaad tarafkaa kale uga dhacdo tatarufka waxaa sababaana qofka dhallinyarado isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiinin way hagi lahaayeen waxa sax ah sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin